wasaaradda kheyraadka biyaha ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta munaasabad ballaaran u qabatay xuska maalinta biyaha adduunka oo sanad waliba 22 bisha Maarch si ballaaran looga xuso dunida daafaheeda iyadoo ay munaasabadani ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera iyo qaar kamid ah mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil uqaal salaadiin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan munaasabadani oo saaka lagu qabtay xarunta wakaalada biyaha ee magaalada Berbera ayaa waxa ugu horeyntii munaasabada daafuray maariyaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera Cabdiraxmaan Cartan Geedi oo isagu ka xog waramay ahmiyadda ay biyuhu leeyihiin nolosha iyo sida ay wakaalada biyaha ee magaalada Berberi uga qabtirtay shacabka magaalada Berbera baahidii loo qabay biyaha waa maalin caalamka looga asteeyay maalinta biyaha asbaabaha looga asteeyay waxa weeye biyuhu waxay ka mid yihiin ama koow ka yihiin nolosha bini'aadamka ama wax kastoo noolay ay u baahan yihiin sidaa darteed ayaa loogu qiimo geliyay oo maalintan 22 Maarch looga yeelay khaas inay u ahaato biyaha waxaan aaminsanahay in wax badan iska bedeleen bulshada imika tacaawun badan ay nala shaqeeyaan meeshii biyo ka jiray noo soo sheegaan baahi wixii ka jiray gurbadan nala gurbadan iyadoo aan ku amaanayno dhammaan madaxda muxuu ahaa gobolka iyo degmadaba sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay xubno isugu jira cuqaal iyo waxgaradka gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta hay'adaha wada shaqeynta dawladda ee wasaaradda biyaha ee gobolka Saaxil ayaa waxa iyaguna maamulka wakaalada biyaha ee magaalada Berbera ku amaaneen sida guud ahaanba magaalada Berbera uga qabtireen baahidii loo qabay biyaha iyagoo tilmaamay inay biyuhu yihiin laf dhabarta nolosha aadamaha gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayir ku-xigeenka degmada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub oo si isku mid ah uga hadlay ahmiyadda ay biyuhu leeyihiin nolosha aadamaha iyo in la weyneeyo xusitaanka maalintani runtii maanta waa maalin aad u qiimo leh waa maalin taariikhi ah waxa loogu asteeyay adduun ahaanna waa maalin runtii xaq ilaahi ah iyo xaq ijtimaaci labadaba ku weyn sababtoo ah waxa laga hadlayaa waa biyuhuna waa nolosha aadamaha weyn runtii عقلتي مالك فيها أدوك وأصلي هو شكل عرضي كان فيها قبلة عقلة باكري استحفظ باكشي تدار قدم باكري intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayir ku-xigeenka degmada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub waxay si wada jir ah sharaf u gudoonsiiyeen maariyaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera oo uu ku mutaystay bay yiraahdeen wax qabadka baaxadda leh ee uu gaarsiiyay muddadii uu joogay wakaalada biyaha ee magaalada Berbera Khalid Xasan Kharash Bulsha TV magaalada Berbera.